السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. markale kulanti wanaagsan. waa maxamed sayid kusoo dhawaada channelkayga baro caalamka. maanta runtii waxaan rabaa inaan dulmar yar ku sameeyo mowduuc ciwaankiisu yahay sidee loo sameeyaa kayd, sidee lacagaha loo maamulaa ama budget management ayaan xogaa dulmari doonaa. sida mowduucan ama qodobkani wuxuu aad muhiim ugu yahay ama anfici doonaa dadka uu dhaqaalahoodu yaryahay ama inkamkooda uu yaryahay ama mushahar yar ha qaataan ama ganacsi yar ha lahaadaan, sidii ay lacagahooda u maareyn lahaayeen iyo sidii ay u samayn lahaayeen kayd yar si ay u xasilooni dhaqaale u gaaraan. markale haddaan ugu cusub tahay nagu soo biir kusoo dhawaada channelkayga baro caalamka. dadka badan waxay ka shaqeeyaan ganacsiyo yar ama waxay qaataan mushaharo aan ku filnayn, sidaa darteed waxay ku andacoodaan inayan samayn karin wax kayd ah, balse arrintu way ka duwan tahay midaasi. halkan waxaan kusoo bandhigi doonaa talooyin fudud oo muhiim ah, xitaa uu qofku awoodi karo hadduu inkam yar leeyahay ama mushahar yar qaato ama ganacsi yar uu leeyahay inuu wax seef gareeyo iyo faa'iidada ay leedahay inuu qofku wax seef gareeyo. dhowr qodob ayaana u kala qaadi doonaa hadduu alla idmo. marka ugu horreysa qofka waxaa loo baahanyahay inuu sameeyo qorshe inuu sameeyo lacagtiisa bil walba ah ama monthly planning waxa la yiraahdo. waa inuu sameeyaa marka aad hesho mushahar ama mushaharka aad qaadato ama markii ay dakhligu uu kusoo galo lacagaha aad sugaysi, waa inaad u kala qorshaysaa dhowr step ama dhowr tallaabood ama dhowr wajiyo inaad u kala qorshaysaa. tusaale ahaan waxyaabaha daruuriga ah bil walba baxa sida kiradoo kale, cuntadoo kale, gaadiidka ama gaaska gaarigoo kale, korontada, waa inaad wax u qorshaysaa. intaas markaad qorshayso kadibna qorshahaaga waa inaad ku dartaa kayd yar oo bishii adnaysta wax aad meel ku ridi kartid, aad seef garayn kartid oo kale. qorista marka qarashaadka ama inaad balaan samayso waxay kaa caawinaysaa lacagtaada inaad si habsami u maamushid kuguna filnaato. qodobka labaad ee aad samaynayso wuxuu yahay waa inaad ka fogaataa qarashaadka aan muhiimka ahayn. waxaa jira waxa loo yaqaano needs iyo wants wax la yiraahdaa jiro. needs waa waxyaabaha daruuriyaadka ah ee qofku u baahan yahay oo kale, sida waxaa kamid ah oo kale kiradii guriga, biilkii, waxaa kamid ah gaaskii gaariga. waxyaabaha daruuriyaadka ah ee bil walba joogtada ah waa needs, kaasi waa muhiim. balse waxyaabaha laga fogaanayo waxaa kamid ah waxyaabaha la yiraahdo wantska, waxyaabaha la iska raboodo. inaad hadda iska baxdo kale, aad kafee iska aado, inaad meel tagto fadhi ku dira maqaayad iska geshid, inaad shaarkan u qanciya iska iibsato, inaad kabahan u qanciya iska iibsato. waxyaabahaas waxaa la yiraahdaa wants, waana iska dayin kartaa, dibna waa u dhigan kartaa. marka qofka inuu xooga saaro needskiisa, waxyaabaha uu baahidiisa ah, ka fogaado waxyaabaha wantiska aan loo baahnayn oo qofka iska jeclaanayo ama iska iibsataa isdhahayo. waxyaabahaas waa inuu ka fogaadaa marka ugu horeysa. mararka qaarkood waxa weeyaan lacagaha badan waxay ku baxdaa waxyaabaha wantiska ay dadku ku bixiyaan aan loo baahnayn oo laga fogaan karo, sida inaad meel kasoo qaxweyso, inaad dharaadaan u baahnayn iibsato, inaad qalab oo aanan degdeg ugu baahnayn oo kale iibsato. haddii aad kuwaas ka fogaato lacagtaad wantiska ku bixin lahayd waxay noqon kartaa mindii aad seef garan lahayd, waad makaydin kartaa. qorshaha saddexaad ee qofku uu dakhligiisa ku maareyn karo waxaa kamid ah waa inaad samaysataa kayd. haddii xitaa uu yaryahay waa inaad kayd samaysataa. dad badan waxay dhahaan lacag igu filan ma haysto oo wax igama go-aan. qofka haddii xitaa inkamkiisu uu yaryahay, at least waxyaabahan ama wantiska ahaa oon loo baahnayn wuxuu ku bixin lahaa uu seef garayn karayaa. kaydka wuxuu kaa caawinayaa dhowr arrimood, sida xaaladaha degdeg markay kugu yimaadaan, xaalad caafimaad kugu timaado ama xaalad degdeg kugu timaado ama xaalad ganacsi aad u baahato yar inaad abuurto kale, kaydka ayaad u baxsan kartaa. xilligaas wuu ku caawinayaa. waa inaad ka fikirtaa ila dhaqaale kale inaad samaysato. kaydkaaga markuu yaryahay ama mushaharkaaga uu yaryahay waa inaad qorshe labaad ama balaan kale aad lahaataa, ama qorshe labaad ama balaan b waa inaad lahaataa, oo si aad u samayn lahayd another source of income ama dakhli ila kale dhaqaale saad u samayn lahayd waa inaad samaysaa. qorshahaas waa inaad aadan ku seexan keliya, aadan ku qancin inkamka yar aad haysato. waa inaad qorshe labaad sii lahaataa aad ku samayn lahayd inkam kale.
sida waa inaad ganacsi yar aad samaysataa, ama inaad online wax yar ku iibisaa oo kale, wax ku iibista aad barataa oo kale, ama inaad xirfado aad samaysataa sida designinka, farsamooyin, waxyaaba aad barataa. dakhliga dheeraadka wuxuu ka caawini karaa xasilooni dhaqaale. runtii qofka hadduu maaragtay dakhligiisa yar u maamulo, bishiina markay u yarta xitaa $1 noqdo uu seef gareeyo ama $2 uu seef gareeyo, taas waxay ka caawinaysaa xilliga xaaladaha degdegta lasoo gudboonaado ama emergencyga lasoo gudboonaado inuu qofkan ismaareyn karo. si lamida marka uu maaragtay intaas inkamkaas yar uu haysto qofku, waa inuu kusii fikiraa siduu inkam kale u samayn lahaa ama ilo kale oo dhaqaale u samaysan lahaa oo kale. ugu dambeyntii, maareynta lacagtu waxay kaa caawinaysaa inaad hesho xasilooni dhaqaale iyo inaad maaragtay mustaqbalka wax aad maaragtay kayd samayso. sida aad u isticmaali karto kale waxaa kamid ah, haddii aad rabto mustaqbal dhaqaale oo wanaagsan, waxaad samayn kartaa qorshe ayaa la imaan kartaa. qorshe yaree kharashaad iyadaada, waxyaabaha wantiska ka fogow ama waxyaabaha oo iska ragoonayso, waxyaabaha niidiska xooga saar oo daruuriyaadka loo baahan yahay xooga saar. keyd yar samee, raadso dakhli kale ama ilo kale oo dhaqaale si aad u hesho. haddii maaragtay xitaa maalintii $1 hadaad ama bishii ama $1 hadaad keydiso ama $2 keydiso, ugu dambeyn wuxuu noqon doonaa lacag badan oo hadhowti ku anfici doonta. marka mawduucan waxaan uga hadlayay ama vlogan waxaan uga hadlayay sida qofka dhaqaalihiisa uu yaryahay, inkamkiisa uu yaryahay, uu haddana lacagihiisa u maareyn karo, budget management oo kale suu u maareyn lahaa, iyo siduu wax u seef gareyn lahaa. si lamid ah qofka intuu dakhligaas yar haysto inuusan ku qancin oo ugu fikiro si uu samaysan lahaa ilo kale oo dhaqaale ah. marka haddii uu maaragtay halkan nala soo gaarteen, waxaan rajeynayaa inuu at least dadka dhaqaalahooda ama inkamkooda uu yaryahay inuu saacidi doono. qofkana waxaa muhiim ah inuu ku fikiraa bishii inuu wax seef gareeyo, at least haba yaraado. marka waxaan rajeynayaa inuu maaragtay idin anfici doono. mahadsanidin. halkan ayaan kusoo gabagabeyn doonaa.